warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay roobab mahiigaan ah oo xalay ka da'ay magaalada Muqdisho sidoo kale roobabkan oo ahaa mid aad u xoogan oo ka da'ay Muqdisho ayaa waxa uu dhaliyay khasaarooyin kala duwan wuxuuna sidoo kale biyo badan dhigay wadooyinka caasimadda ee Muqdisho inta la xaqiijiyay haweeney iyo gabar ay hawreer u tahay ayaa ku geeriyooday roobkii xalay ka da'ay Muqdisho kadib markii uu ku soo dumay guri ay qoyskaasi degnaayeen oo ku yaala xaafadda loo yaqaan Waayabe oo ku taala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir dhanka kale roobkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa waxa laga cabsi qabaa inay ka dhashaan khasaarooyin kale oo inta ka badan waxayna biyaha roobka qaadeen gaadiid mootooyin halka ay burburiyeen guryo badan oo ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sidoo kale galeen biyo kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay xujay badan oo xalay xilliga roobka socday ka baxaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee wadooyinka caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa badankood fadhiya biyo aad u badan waxaana sidoo kale burburay qaar ka mid ah laamiyadii la dhisay wuxuuna roobabka saameyn xoogan ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka